shimbirkii sababay dhimashada 15 milyan oo qof. 1958 ayaa hogaamiyihii Shiinuhu ku amray dadkiisa inay dilaan dhammaan noocyada kala duwan ee shimbiraha afka qalaad lagu dhaho house sparrows. Runtii dadka beeralayda ahaa waxay bilaabeen inay dilaan 10,000 oo shimbiro horyaal ah. Kii ugu tirada badnaa wuxuu helay abaalmarin. Waxaana loola dhaqmay sidii geesiyaal qaran oo xoreeyay daldan. Laakiin markii dambe ayax ayaa dilaacay, kaas oo ka cunis batay xadigii shimbiruhu beeraha ka quudan jireen. Arrintan ayaa si naxdin leh ugu fiday dalka oo dhan. Ayaxii wuxuu baabi'iyay dhammaan dalagii beeraha. Taasi waxay ahayd sababihii ugu weynaa ee sababay abaartii Shiinaha ee 1961, taas oo sababtay dhimashada 15 milyan oo qofood, una dhinteen gaajo darteed. Haddaba daawadow,